بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها أورك بدبادة الصحفيين الصوماليات محمد نور محمد شريفكا صحافة الصوماليات وحيابة بدن عليس أي صوفون أو يجوه الرئيسكو ورياشة أنت بدن إنك بدن لح بلاد سكيحر حبسي إسلام كان حبسي كحلو صديق وعن واحد محكمة اللي هو كانين تي وجودن بس مركز لكاننا واحد عط أي اللجوء مركز تاسي وحيكون دباته والرئيس الصحفيين أي جرو صود وين وزير اللي أوديار جرو أو صحافة وحش قان وقبل kuwaasna waxaan leenahay soo dhaweyntina iska dhaaftaan ka howlgala dhibaatada shacabka iyo waliba saxaafadda haysato tan kale caburinta saxaafadda ay dawladdan hadda jirto ku caan baxday iyo xarig iyo dhibaato u geysanayso hadda qaarkood way xiran yihiin dhibaato fara badan ayay markaas u geysteen ilaa ay haddana saxaafaddu waxaan ognahay inay tahay mid kaliya ee ku meel gaarnimada dawladdan la sheegay ka saartay iyadoo ergooyinka qayb qaatay xildhibaanadii ka qayb qaatay odayaasha dhaqanka qayb qaatay ugu dambeyn tii xasan sheekh madaxweynaha Soomaaliya markaas lagu doortay intay howshaas ku jireen ee adduunku bandhigayeen adduunka iyo qurba joog oo dhan imaanayeen waa la dilay waa la dhaawacay waa la barakicinay marka meeshii abaalmarin looga dhigi lahaa inay shaqo wanaagsan qabteen ayaa xabsi 6 bilood iyo xanuun la isugu daray marka dawladdu waxa leenahay arintaas hoos u eegto mid kale arintan laftikeeda ay ku saabsan saxafiyiinta xabsiga ku jira dacwad ayaan maxkamadda gobolka qorayna waxaan u gudbinaynaa maxkamadda sare si markaasi wax looga qabto marka ururadan meelaha kulamada ku qabanayna waxaan u sheegaynaa inay iska daayaan kulamada isla markaana ka howlgalaan dhibaatada iyo waxyaabaha lagu fulinayo walaalahooda saxaafadda isla markaasna ay dadaal sameeyaan haddii kale laftirkooda waan dacweyn doonaa oo maxkamadda sare ciidiid cabdullaahi ilkaxanaf ayaan u gudbin doonaa waa mahadsantiin wasiirka cusub soo dhawo waa leenahay wasiirkii hore مصطفى دحولو شقة قبرتي تانكيو وكما سنتي سي دو ولنا عبد الله عولاد جروب كله كوس وزارة جوجنا أمبلي علينا لكن قوة سود وين تكليها شقة كدكتي الدباتات صحافة عن كهذين أدوح علينا وحش كفرة وما سنتين